waxaynu caawa waxay iska tusi doonaa in isxusuusin doonaa bisha Ramadaan iyo waxa kaga aadan dhalinyarnimada. Ramadaan de waa fursad horta alla qof wal oo muslima ama dhalinyar ha ahaado ama waayeel ha ahaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado. hase yeeshee waxaynu caawa aynu baraarujinaa dhalinyarta ayaynu baraarujinaa waxaynu u gudbinaynaa talooyin iyo tusaalooyin aynu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayno inuu dhalinyarta muslimiinta ah uu alle jalla wacalaa uu ku anfaco. bisha Ramadaan waa mawsim min mawaasim alkhayr, xilliyada khayrka ayay ka mid tahay. inay khayr leedayna waxaa ku tusaaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta iyo muslimiinta ku waajibiyey inay soonkii faradka ahaa ee ka mid ahaa arkaanta islaamka inay soomaan bishaasi Ramadaan gudaheeda. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum buu ilaahay. wa saxiix min xadiis cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhu qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam buniya alislaamu calaa khamsin. islaamka waxaa lagu dul dhisay 5 rukni ayaa islaamnimada lagu dul dhisay: shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muxamada rasuulu llah wa iqaami الsalaa wa iitaa'i الzakaa wa xaji اlbeyt wa sawmi ramadaan. qofkii bisha Ramadaan soomi waaya ee u qastiya ee uu uga taga soonkaa bisha Ramadaan isagoo soonku waajib ku yahay aan lahayna cudurdaar sharci ah, islaaminadiisa waxbaa ka dhiman, diintiisiina waa qabiga weeyaan. fadliga bisha Ramadaan waxaa ka mid ah oo isna arrin weyn ah in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan qur-aanka ah uu soo dejiyey bisha Ramadaan dhexdeeda uu soo dejiyey. shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. si aad ogtiinna kitaabka ilaahay ee qur-aanka ah ayaa isagoo wada dhan jumlatan waaxida ayaa laga soo dejiyey min allawxi almaxfuud ila samaa'i dunya. goorma la soo dejiyey? waxaa la soo dejiyey leylatu qadrigaa la soo dejiyey. innaa anzalnaahu fii leylati alqadr, innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka. waa habeenka leylatu qadriga ayaa loola jeedaa. haddii kitaabkii ilaahay isagoo wada dhan oo jumlad dhan ah la soo dejiyey habeenkaasi leylatu qadriga la soo dejiyey, waxaa haddana 23 sano ee risaalada islaamku ay ku socotay nebiga sala allahu calayh wasalam 23 sannadoodna qur-aanka waxaa lagu soo dejinayey isagoo munajama. munajam maxaa loola jeedaa? ee mufaraqan, isagoo tafaaraariiqa ayaa nebiga lagu soo dejinayay sala allahu calay wasalam, iyadoo la eegaayo dhacdooyinka, iyadoo la eegaayo su-aalaha ay saxaabadu nebiga ay weydiinayeen sala allahu calayh wasalam. yasaluunaka can ilmaxiid, yasaluunaka can alkhamri walmaysir. saasaa markay su-aal ay nebiga weydiiyaan ayuu ilaahay caza wajalla uga soo jawaabayey oo aayadahaasi nebiga lagu soo dejinayay. fadliga bisha Ramadaan wuu badan yahay, laakiin waxaynu tilmaamaynaa inuu yahay fursad Ramadaan ay tahay, fursad inay tahay. dhalinyartana loo baahan yahay
inay fursaddaasi si habboon oo xilkasnimo leh inay uga faa'iidaystaan. haddaynu dhallinyarnimada aynu yar jalleecno aynu ka hadalno waxa ay dhallinyarnimadu tahay, waa inaysan xusuusinayn dhallinyarnimadu waxay u dhaxaysaa laba xilli oo qofka bini-aadmigu uu daciif yahay oo uu taag daran yahay. wuxuu ka soo baxayaa xilligii carruurnimada, wuxuuna ku socdaa xilligii gabowga iyo waayeelnimada ayuu ku socdaa. walidaalika inaan odhan karnaa dhallinyarnimadu waa waqti dahabiya. limaada? waa maxay sababtu? sababtu waxay tahay dee waa xilliga qofka bini-aadamku uu awoodda leeyahay, waa xilliga ay firfircooni iyo nashaad iyo quwo iyo waxqabad ay ka buuxaan, isaguna awoodu leeyahay inuu wax badan u qabsado intaanu gaboobin oonu waayeel noqon. walidaalika ayaa sida ku yimid xadiiska cabdillaahi bni cabbaas radi allahu tacaala canhu, nebigu sala allahu calayh wasalam qaala lirajulin wa huwa yaciduhu, nin buu ku yidhi isagoo nebigu waaninaya, iqtanim khamsan qabla khams, 5 waxyaalood ka faa'iidayso oo wax ka qabso inta aanay 5 kale kugu iman. nebigu sala allahu calay wasalam arrimahaasi inugu dardaaray, ama uu dee saxaabiga uu ku lahaa uu waaninayay, laakiin hadalku inaguna waynagu socdaa. waxaa ka mid ah uu ku yidhi shabaabaka qabla haramik, waxa ka qabso oo ka faa'iidayso dhallinyarnimadaada qabla haramik, intaanan gaboobin ka hor. wax badan baad dhallinyarnimadaada aada qabsan kartaa, wax badan baad faa'iidaysan kartaa, ee inta aanay kugu iman gabowgaasi aanu kugu iman. waayo markaad gabowdo waxa isdhimaya nashaadkaagii baa isdhimaya, waxa isdhimaya quwadaadii baa isdhimaysaa, waxa isdhimaya waxqabadkaagii ayaa isdhimaya. nebiguna sala allahu alay wasalam meeshuu beegsanayey ee uu tilmaamayey markuu ninkaasi u waaninayey, halkaasi ayuu joogay. dhalinyaroy, niyow dhalinyartii, inay dhalinyartii ma aragteen oday gaboobay oo soo fororsaday oo ul ku tukubaya, oo ushaa uu ku tukubayaa ayba u noqotay lug saddexaad oo ku socdo, oo isbeddelka wejigiisa ku yaalla ay wax badan ka sheegayaan dhaararihii badnaa iyo sanadihii badnaa ee uu noloshiisa soo maray. su-aasha meesha ku jirta ee dhalinyaradu inay isweydiiyaan ay tahay waxa weeye, odaygani weligiima saasuu ahaa, islaamkani weligeedma saasay ahayd, mise waxa soo maray maalmo ay dhalinyar ahaayeen, ay xoog lahaayeen, ay tamar lahaayeen, ay wax badan ay qabsanayeen, oy boodayeen, oy socdeen, oy rooriyeen? jawaabtu iska cadda. su-aasha labaad ee dhalinyaradu inay isweydiiso markay odayaasha iyo islaamaha taag darreeyey ay arkaan waxa weeye, adigana soo maalin saa noqon maysid, soo tamar gabi maysid, soo dhabarku ku soo fororsan maayo, soo ul ku tukubi maysid. waaba hadday geeridu ku dayso weeyaan, waaba hadday geeridu ku dayso oo ilaahay jalla wacala oo cumriga kuu dheereeyo. waa run, maalin baad saa noqon doontaa. haddaba inta aanad maalin maalmaha noloshaada ka mida aanad u murugoon dhallinyarnimada aan kugu soo noqonayn, hayhaata inay soo noqoto oonad ka shallayn dhallinyarnimadii aada dayacday, imika ayaa lagaaga baahan yahay inaad dhallinyarnimadaada aada wax ku qabsato
oo aad maalinka maanta ah aad ka faa'iideysato nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 النبي صلى الله عليه وسلم صالح لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 قمدها أدونكم مالنت قيامها كزول مايان إن بنك قيامها أي تاجنادان إلا 4 سؤالات ويديو 4 سؤالات وإنه أدونكم كجواب مالنت قيامها 4 سؤالات وحلقوا الرماء وحلقوا والدنيا محاكمة وحكمنا عن شبابه فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه دليرنمديسي محوكو إلي محوكو بالي دليرنمديسي محاكا قتلت من لهوي يا عيار دليرنمديسي ميو كل أوفري ميو تمشو كل ميل مثلا الآن بيك كتكتي مثلا الآن بيك كتكتي بيسوي دليل نمديسي وكم جبوتشي طاعة إلهي يوم من أهل المساجد إنه كم ضحى أفهم مؤمنك الدنيا يرتع إنما يهب لبا سؤال وين أهرت الله وأباهن إني إمك كتشوابان إني إمك إسويديان oo ay wax ku qaataan cimrigan ku socda iyo maalmahan iyo sanadahan aan marnaba sugay ikhwani sida imam bukhari soo wariyay min hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam 7 qof waa 7 nooc oo dada ayaa maalinta qiyaamaha ee banka qiyaamo la taagan yahay ee ciidu soo dhawaanayso ee la dhididaayo ninba dhididkaasi meesha u gaaraba 7 nooc oo dadka kamid ah ayuu ilaahay maalintaasi u hareenayaa waana maalin harka ilaahay mooy har kale aanu jirin 7da waxa kamid ah shaabun nasha'a fi ibadati Allah shaabun nasha'a fi ibadati Allah قفل يرى ذكرا أو كان أنثى أما اللبها هذا أما الددك هذا قفل يرى أو كبر باري طاعة إله سبحانه وتعالى أذوقنا أخي وأختي لن يرى ذلك ما يسوي ديسي سيدات تذكر لن يرتأه xoogoogi nashaadkoogi dhaliiramadoodii ku soo dhameystay taacada ilaahay ee ilaahay u horeeyay maalinta qiyaamaha sida uga mid noqon lahayd adu imika ma ka fikirtay way xawiyeen waqtigaagu xawligu ku socdaa daraarahaagu way tagayaan maalmahaagu kuma sugayaan cimrigaagu ka fakanaya ee ma ku dadaashay oo ma ku hawloon tahay saad uga mid noqon lahayd majmuucadaasi iyo kooxda dadka kamida oo ah dhalinyaro ilaahay subhanahu wa ta'ala taacadiisa iyo cibaadadiisa ku soo barbaartay washaabun nasha'a fi ibadati Allah marka shaabun huna waxa loola jeedaa wiil iyo gabadh labadaba loola jeedaa inan iyo hablo waa loola jeedaa saas weey bisha ramadaan hadaynu wax ka tilmaamno dhalinyarnimada iyo sida looga baahay inay dhalinyartu ay uga faa'iideystaan aynu ogaano qofka dhalinyarnimadiisa cibaadeysta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala taacadiisa ku dadaala ramadaan iyo sanadka inta kalaba waxay culimadu yiraahdaan ee waliba daa'ima taacada ilaahay yanju min al-hasrati 'inda al-'ajz ونقطة آدية مهمة أندوني إن دليرنمضو أي
كفكران وايد بلا آدم أنت بدن وحلاقيها بقينا أنا أنت فيرين أمام مسألة أنا كفكرين خاصة أنت أي دليل تيجين وحنري والنجاة من الحسرة عند العجز وإنه قفك دليل نميدي سوء عبادستي سوء صومي سوء صلاة هذا مركو تبرقبو عبادوينك يكون عصلادان مع إن عذر كمين آودي أما الداء كتمين آودي هديه مركو حوق إيا نشاطك إيا تمرتا إيا دليل أولها وسوء عبادستي مركو تبرقبو ممرقون أيو مش اللين أيو لماذا؟ ده عمرقيسي وسوء عبادستي إخوان وحو كسو الددالي طاعة عبادة إله سبحانه وتعالى أي كسو الددالي سيدا أوديت أي وحا اللي نقبها هي إن عمرقينا إنت عن بنيرتنا هي أي نكد ذالو طاعة إله سبحانه وتعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه نبي وحي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما بالإخوان حيث يقولوا في رسالة والنبي يقول لي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد مركو أضونك حانو الصدو أو سافر أما أو سفره مركو أضونك حانو الصدو أما سفره كتب له وحلو قرى ما كان يعمل صحيحا مقيما أجرك أعماش وسمين شري مركو عافيمات كقبي ونا سفر لكتير السعودية الآن كتير معناه دوا محي يقفك مثل كيو كلاتا صالح سوقته نكيد اللي يرتاها أهل فجر كأها صلاة سبح مساجك كنت كناي ورد كيس قرآن كآخر سنة صوم كيس الصوماي هذا مركو جبوبه وحلاقيها بقى إن حتى أكو أتكاتو إن مساجك يبعد هذو بكان شيف نقضوا كله يا ومركز تمغلتي ولا قد القديم أيوه هذا هو مساجك كله جين شيء هذا هو صف كورو كده ذلك شيء وتمر جبي وإما كسمين كريمايو قف يصوب صوب عشالي يصوب عمر جيسي كسول الله فري ده مروج حتى هتو توبت كيني هذا استل مروج بهاينسا مروج أيه هاينسا مركو أركو لكن كيسو سعد عبادستي يو قرنا يا وحوي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فرح بقلب جيسا وحناية أو إنه دنيا نمديسي وسود ذالي يشباب نمديسي وله سوء عبادستي marka waxa rajeenayaa qodobkaasi inaanu dhaafin dhalinyarta oo ay ogaadaan waqtigan imanka ay haystaan waa waqtigii looga baahnaa inay cibaadaystaan oo waliba ay cibaadada ku dadaalaan Hafsa bint Sirin rahimahullah ta'ala tabi'id weyn bay ahayd wa Muhammad Sirin walaashi ayaa dhalinyarta ayay oran jirtay اعملوا أيها الشباب فإن العمل في الشباب يوجد لأن يري إمك شقيست إمك عباديست وعمل فلا وايو عمل كوحويا وإنت اللي يرضى ليهي الحب ليهي ولذلك نكن أن يرتي وين سويديو سببت الضاعة وهب صامايو سببت العبادة وقعها كيسايو بعد السلف سيد سفيانيو الثوري وكليو waxay dhalinyartu ku oran jireen dhalinyarey habeenkii tukada hadeedaan imaka qiyaamileel iyo tahajjud ayna la iman famata dadkan saalixiinta salafkii kamid aha maxay doonayaan in dhalinyarada hadaladan waxa laga yaabaa inay yimaadeen inay yiraahdeen iyagoo in dad waaweyna soo garmaysin laakiin qofka mu'minkii qofka muslimkii دائما يحب الخير لاخوانه سما دائما يحب الخير لاخوانه قف منكم خير كلا جعليه ولا الذي المسلمين اي خير كلا جعليه marka de qofkii markuu weynaaday oo khibrad soo yeeshay oo noloshii soo arkay
وحقيقة سوف فهمي حتى هدي إسوه مقصرها حاشا يعني ذاتك السلف إن مقصرين هايين لكن حتى هدو مقصرها وحو خيرك للدنيا ولا الذي بخيرك للدنيا دليرتن لا sheekaysanaysa ee uu ku dhex jiro ayuu doonaya inuu ka badbaadiyo gafaf laga yaabo inay ku dhacaan iyo gaabis ay suuragal tahay ama qaflad ka iman karta inuu ka badbaadiyo oo waxyaalo badan uu iftiimiyo waxyaalo badan uu tuso saasa loo baahay waxaad aragtay dhalinyaro waxaad aragteen iyadoo bisha Ramadaan masaajidda la soo buuxinayo waxaad arkaysaa dadkii salaadii ku dadaalaya akhriska kitaabkii Ilaahay ku dadaalaya xoolahoogii baxsanaya taraawiixdii tukanaya dad badan ay cimrada inta tigidho u goostaan doonaya muusimkan khayrka in fi jiwaari bayt Ilaahi al-Haram iyo Kacbada agteeda inay ku i'tikaafaan oo ku soo cibaadaystaan وبشر رمضان صور كان أما مقال كان وحفليا إني دمانتين إن وضع عرني ومركز مساجد على صوت شو هذا أرك دونتو مت كناية مت قرآن كآخر سناية مت ذكرية مت كعمها كرو قاضي وأويايا وإله سبحانه وتعالى بريا يسدو مكان سمحته له دنوتي سو ضعفه أذيبو لن يروي أذيبو أما إن أنا هاوي جمهور أهل الخير كا إيه مصيرة صالحين تا مصيرة الصالحين يجدي أدتك إله سبحانه وتعالى أخضوعايا أذوق حلقين كي ترتاح أذوق حلقين كي ترتاح وحلو بهاي إن قفك الذي يرتي سويديو وردتك الإله حقي سعودي تشيرسلي الصلاة الصون الإنفاق الإحسان إلى خلق الله عز وجل خير كأوضا بشر رمضان ددالا يا أنيقو حلقين كيجيرا ولي ما نورد ليرى أنيقو ولي ورد ليرى وحوقيدي يتمرتيدي يقوديدي انت ما نحستو ميان غالي يسكرن نقضاء إن عشاء مركان تكودان ترافي كتغو ميان رالي كرنقضا إن بشر رمضان صوق شو يقبحه أنا يقول جزء قرآن أنا أخري أما أنا كتاب كذا هاي مر كلي أنا دمين إن كستو عند السلف تذكي صالحين تا سيد القرآن كو أخري جرين وحويان تكاسوابه موضوع عجيب بقى وأنكرتو سيد يقول دمين جرين إمام شافعي أوكله وحويان لحدا شير أيور رمضان قده هذا وقرآن كدمين جرين لحدا شهر 60 خطمة عجائب وراء عجيبنا سلف ولا يسوري قاربا صدح 20 مرة مينشري قاربا مالين تيبا مرة مينشري قاربا تضبط 20 مرة مينشري أنا هذاك الوريسيو أما مالين تيبا مينشري قولا سيدا شافعي وكله مالين تيبا مرة مينشري هم كانوا مرة مينشري قولوا قاركوس صدح تربي مينشري صدح 10 مرة مينشري قاركود شنت عشان وربي دمين شرين قاركود تدبد عشان وربي أي دمين شرين قارتمان عشان وربي دمين شرين لكن على الأقل أيها الشاب وأيها الشابة على الأقل بشر رمضانين كابحين أديو كتاب كإلهي مرة ختمين كتاب كإلهي أديو مر ختمين يانا بشر رمضان قل عفو انت هتات كبت ستنا دي واحد من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دذلك ولو بهي ويا رمضان وبشي خيرك وموسمك بركضة وحلي دنوت الدافعي إلى هي ودد نار تكحريناي وحكوتش رمضان هبين كخير بدن ولو تقدري كخير بدن إن مركز الحسابيو سدحي سديتن سنوات كخير بدن مركز الدلال أي قفكم ممكن لو بهي ninkan iyo inanta dhalinyartaana in iyaguna aad u dadaalaan ayaa looga baahan waxa kale oo in u baahan inaynu fiirino طبعا caqabaadka dhalinyarta hortaagan waynu tilmaami doonaa dhamaadka kelmadeenan laakiin waxaan jecelahay inaan dhalinyarta ku baraarujiyo
bisha ramadaan waxa la arkay idinkuna aan filaya inaad aragteen dhalinyar masaajidda ka fogeyd oo macaasida ku dhex dabbaalanaysay oo khayrka ka dheeraa laakiin bisha ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqday oo toobad keenay anu intaan maraykan joogay waxaan markhaati ka ahay ramadaan marka masaajida la soo buuxiyo ee tobanka dambe ramadaan la ictikaafo dhalinyar badan oo muslimiina maraykanna waa meel ay fitanku badan yihiin dhalinyar muslimiinu ayuu daad ku qaataa oo simbirraxooda macaasida ku simbirraxooda laakiin waxaan shaahid ka ahaa kuwa nimankaasi fogaaday ee dhul gaare shooladda uu dhexda ugu dhacay shooladii macsida in markay bisha ramadaan masaajida yimaadaan ay imaamka qur-aankii akhrisanaya ay akhriyaya ay maqlaan ay arkaan dadkan tasbiixsanaya dadkan dikriyaya dadkan cibaadaysanaya dadkan ilmadu ay ka daadanayso inay toobad keeni jireen oo sadiquuni ayuha alikhwa aad habeenada ramadaan ugu dambaysa aad arkayso wujuuhdoodii nuurisa noloshoodii isbedeshay ay nolol cusub ay la bilaabeen rabbigood subxana wa tacaala ay toobadda xaqiijiyeen qaar baa marka imaamku uu salaad waxaad arkaysaa nin ramadaan bilowgayga aanay aahaartii taacadu aanay aada uga muuqan laakiin haddana markuu imaamka istaba taago ee aayadaha qur-aanka lagu akhriyo hadda waa ramadaan ama taraawiixdii ama qiyaamkii oo hin masaajidku dhan uu isqabsanayo iyadoo nimankaa dhalinyartii ay ka murugaysan yihiin lexsanka iyo inxiraafka iyo taacada ilaahay ka fogaadeen laakiin imka quluub yacni ilaahay u barax tiran ay ilaahay caza wajalla ay u soo noqonayaan marka ramadaan bishan waxay fursad u tahay dhalinyarta fog ee ilaahay ka fogaatee ee macaasida ku dhex jira inay soo laabtaan inay soo noqdaan inay ilaahay subxaana wa tacaala ay xadhigiisa qabsadaan ramadaanna ay ka dhigtaan mawsim iyo xilli iyo waqti isbeddel oo ayna isbeddelaan inay isbeddelaan waayo ikhwaani intuu qofku nool yahay isbeddelkuu hor yaalla isbeddel uu xagga alle ugu dhaqaaqayana qofkii uu samayn karaa laakiin masalan idiin sheegaya dhalinyarta haddaad tihiin waxaa jirta dhalinyar badan oo garanaysa inay gefsan yihiin inay qaldan yihiin inay macaasi inay ku dhex jiraan laakiin u baahan inay wax qabtaanoo ay isbeddelaan maalin dhexdii baa waxaa masaajidka jaabir salaada duhur kadib waxay salaadda cishaay bay ahayd kadib anoo fadhiyaa ayaa nin dhalinyara ii yimid nin dhalinyara ayaa ii yimid markaa wuxuu yidhi waan ku doonaayey inaan kula sheekaysto horaan aynu wada hadallay marka ninka dhalinyartii wuxuu aan la yaabay yani ilmada ka daadanaysa isagoo hor fadhiya ayuu ilmeynaya towbad buu doonayay inuu ilaahay subxana wa tacala u soo noqdo laakiin waxaa nin xaafidu ahaa nin kitaabka ilaahay xaafidsan ayuu ahaa qofka xaafid qur-aanku yumkin an muslima dembigu wuu ka dhici karaa laakiin waxaa ugu fadli badan ugu khayr badan kuwa ilaahay subxana wa tacaala u soo noqda markaasi yani wixii ilaahay iiga furay waan u sheegay laakiin macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeyaan ilmadaasi qofka taa'ibka ka daadanaysa ayaa rubamaa inay ka khayr badan tahay mid habeenkii qiyaamuleyl u taagan oo iscajabinaya towbadaasi nadamu taa'ibiin wa dumuucuhum ilmada ka daadanaysa qofka taa'ibka ah iyo murugada qalbigiisa buuxisay ayaa ka khayr badan mid habeenkii tahajudaya laakiin isla cajabsan oo xaqiraya addoommaha ilaahay kalena xaqiranaya marka dad badan baa doonaya dhalinyarta ka mida inay soo noqdaan ninkan dhalinyarada ii yimid dee dunuubtiisu aad bay uga yartay dunuub ay dhalinyar kaloo dibadda joogtaa ay samayso layskumana qiyaasi karaayo inuu taqsiir dareemayaa laga yaabaa laakiin dhalinyar fog baa jirta
dhalinyaro aada u fog oo laga yaabo inay mukhadaraad iyo maandooriyaal ay ku dhex jiraan, inay walciyaadu billaah zina ku dhex jiraan, inay salaadiiba ka tegeen, inayna masaajidda soo gelinba. haddana ogaada dhalinyartaasi dibadda joogtaa kuwo badan oo ka midii way doonayaan inay isbedelaan, waxay rabaan inay toobad keenaan, laakiin waxay leeyihiin waxaan sugayaa bal inay fursad ii timaado i riixda. wade masaajidka lagugu daafadeen maaye, ya masaajidka lagugu daafadeen maayo, laakiin adiga ayaa lagaga baahan yahay inaad isbeddel samayso. marka waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay haddii maalin qof reerka ka midi dhinto, mowqifkaasi markaan xabaasha arko iyo qofkaa qaraabada dhintay ayuu qalbigiisa ayuu isbedeli doonaa. ama qof aan aqaano saaxiib ahayn hadduu laga yaabaa oo shil baabuur ku dhintay in ay gilgisho aan tooso qafladeyda iyo mooganaanteyda inaan ka kaco. laakiin su-aal baa meesha ku jirta dhalinyaro, ma laga yaabaa qofkaa wadnuhu istaagay inuu ninka dhalinyartee toobad raadis ka ahaa, ka shilka baabuur ku dhintay inuu isaga ahaa ma laga yaabaa oo waqtigiisii u dhammaaday? dee markaa muxuu sugayaa? cumuuman laa budda min tacjiili tawba, towbada waa in la dedejiyo. culimmaduna waxay ka hadleen mushkiladaha waaweyn ee ku jira ta'khiiru towba, in toobada dib loo dhigo masaa'ib badan ayaa ku dhex jirtaa. masaa'ibtaa waxaa ka mid a in qofkan toobada doonaya siduu leeyahay sawfa atuub isagoo sida isku maawelinaya inuu haadimu ladaadka uu dusha kaga dego, geeridii ku timaado, ay micyaheedii ay geliso, una dhinto oo adduunyada ka hadaafo isagoon xaqiijin toobadii u niyeysnaa. marka in toobada dib loo dhigaa ma wanaagsana, mana bannaana. imaam nawina waa ka raad saalixiinka kule raxmat ullahi calayhi, watawbatu waajibatun min kulli dembin, toobadu waajib bay ka tahay dembi kastoo lagu dhacay. nebiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi attaa'ibu min adanbi kaman laa denba lah. waa bishaaro, hadi bishaara litaa'ibiin, dembigu intuu doono ahaado xadiiskaa nebigu wuxuu bishaaro u yahay lijamiici taa'ibiin, kuwa ilaahay u toobad keenoo dhan, ama dhallinyarnimaha ku toobad keeno, ama isagoo garhku madoobay ha toobad keeno, ama ha toobad keeno isagoo 90 jire oo qarka u saaran qabrigii ha toobad keeno. bal qabla an yuqarqar, inta aanay xalkaa naftu soo gaadhin ee geeridii waxay uga harsan yihiin, hadduu addoonku ilaahay u toobad keeno, ilaahay subxana wa tacala toobadiisa waa aqbalaya. wuxuuna nebigu ku bishaaray oo leeyahy qofka taa'ibkii ee toobad keenay wuxuu la mid yahay sidii qof dembiba aan samaynba. attaa'ibu min adanbi kaman laa denba lah. marka ninka waxaan ujeedaa inanka iyo inanta dhalinyarta ah ilan iyagu hadalku caaw ku socdaaye ee waxaa looga baahan yahay inay toobada ay dedejistaan. ramadaanna waa fursa baynu nidhi, soo maha dhalinyaro? maxaynu nidhi ramadaan waa fursad weeyaan. inta dibadda joogtay masaajidda ka baxsan fursad bay u tahay, inta masaajidda joogta ee taqsiirku ku jiro, ee salaaddii jamaacada aan imanayn, ee maalinka maanta ah awraaddoodii, adkaartoodii, qur-aankoodii aan akhrisanayn, laga yaabo in taqsiir badanu ku jiro, iyagana toobad buu yahay inay an yujadiduu aliimaana fii xayaatihim. waxaan kusoo gabagabeynayaa ayuha alikhwa walakhawaat, dhalinyarta cawaaqib baa hortaagan. bisha ramadaan cawaaqib ayaa hortaagan. waxaan ujeeda cawaaqib ayaan odhan caqabaad baa hortaagan. caqabaad waxaa hor yaalla jiirooyin loo baahan yahay inay ka gudbaan oo ay ka tallaabaan. anigu wallahu aclam, casrigan aynu joogno, dhalinyarada nool, taxadiyaadka hor yaalla ee daacada ka hor istaagaya
waxa ugu badan waa social media weeyaan social media ayaa ugu badan hameen tolo masaajidka Salaaxudiin an muhaadara ka akhriyay Ramadaan shahr al-Qur'aan ee waxaan dhalinyar baa buuxday xaqiiqatan boqolkiiba 9 dadka fadhiyay dhalinyar baa ahay waliba aad u da'yar waxaan ku iri inanka ama inanta dhalinyarada ah ee zamankan iska xakameeyay fasaadka social media iyo internetku waa awliya Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وولي قفك دليرتا اسك حكمي اسك إلالي فسادك يا حمانتا دحيا لا انترنتك يا فيسبوك وولي من أولياء الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يا مسألة أي هروت الماضي سعامو الشيء وحيري طبعا وحو كشيكيناي كرامات كشيكيناي إلهي سبحانه وتعالى رسوشيسا وحو سي معجزات بوسي صوما معجزات بوسي أي أقوام تودي أي كوا جهين ضدك الصالحين تي أوليدي سأهنا وحو سي كرامات والكرامة ثابتة لأولياء الله عز وجل كما هو مقرر في عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة سيد السلف كي ومدى يا أهل السنة والجماعة اسمه وافقين كرامة وحوة حتى الطحاوي رحمة الله عليه وكعقيدي سمشهور كل شيء جاية إن أهل السنة أي كرامات كأصغيان أولياء الله هذا بروف يرسل ابن تيمية كلية كرامة أبوين بوين ابن تيمية رحمة الله عليه إلهي عز وجل أكون من يستوى أدون كيسة أما أدون تيس وما حلوين بيركن هكذا الرابين شيخ سافر لي لزوم الطاعة كرامة كوين ميت تبي كلي كرامة كوين إن إلهي أدون كيسة أما أدون تيسة وكشرفه أو كراميو أو كماموسو أو كمن يستوى لزوم الطاعة إن تعالي لازمة كرامة كويني ما جرتو كرامة كويني ما جرتو عصر قال النور هنا دواد لا غير كرتان سيده قفكا دليرتا ايو هريالان مصائب تنفرها بدن الدجال كان سوشيال ميديا لا يراها ولا يمد سيده فضود وفنين كرتا نيكي دليرتا اي انتي دليرتا اي ولا حين كرتا طريق الله عز وجل marka wax loo baahan yahay dhalinyaro بل على الأقل بشهر رمضان اسكحر السوشيال ميديا اسكحر لأن يرتدي بدأ تشوكتين دي السوشيال ميديا وأذيك ستحمان يفحشنا دي وحويا وباقينا أيضا بل يرى رجي ضمر با سوشيال ميديا سيها دي صفر الله استعمالها والآخرة دي إنسيتين إياه إلهي بيني كفوقين إياه حمان بعد شيء كوسيدتا أود مالك استل العقل كل شو بنيسا العقبات كل شو بنيسا سيد إلهي عاصله أديو قول كيس كفر ليو قريجا يكسوه يدي أيها وحي الحمان تي أدونك من مشرقها إلى مغربها أي قول كهذا كل شوكتا قول كهذا أي كل شوكتا مركا وحويا وقلب شيطانيا قلب شيطان تاسوا من حتى هدي أنا مع سوى ذيك سنين دير بشر بدل روح لقيها بين كل رافته سيدات يعني عاد كل با إن ميلو تيجي كان كبدل أتصاو فورتو مال يهدين ولمبا تسمع حكي نساء وحكوا دافين نساء وردي قال القرآن كل دافين نساء وحكوا دافين نساء أذكار هذه وحكوا دافين نساء صلاة الجماعة والله يا مر البعض يوصله والله هو رمضان برهرتا بشهر رمضان أنصف كرك جارو أين بتساعد بالك أوجهده أنا بدرك ساتي ولا قيمي يعني تعطي ما تقول وذيك حاجة دبي كتو كذي وتدب بس في كرك كتو كرايه تبدأ يضال إذا من مساجك سوق الآية هذيك محكو ديري ما الذي يحول بينك وبين ذلك هذا يكاور استاذ سودا اللي يرتع سودا حوق له سودا قوة له
soo ilaahay caafimaadka iyo caafiyadda ku siiyey bisha ramadaan ku tasho inaad safka hore aad timaado bisha ramadaan ku tasho inaad salaadaha aanay jamaacada aanay ku dhaafin سعيد بن المسيب التابعي الكبير الإمام رحمه الله تعالى أي وحيري قفك شنت صلاة مساجدك إيه جماعة كحفظا فقد ملأ البر والبحر عبادته وإمام كوين قفك صلاة جماعة شنت صلاة مساجدك كحفظي إيه جماعة مسلمين تلتو كنا يا دول قالنا مو جوجنا دول مسلمين جوجنايو وتا مساجد ما ملك سكو يالا dadka aan jamaacada aan iimanayn waa wahsi iyo caajisnimo weeyaan qofka salaada shanta salaad masaajidda ku xafida waxa weeyaan mala al-barr wal bahr ibada bar iyo badba cibaadu ka buuxi in cibaado qofkaasi lagu gaariyo ma taas waa talabaadna waxa weeyaan ikhwaani oo muhiim ah waa cajsiga iyo kasalka weeyaan waa wahsiga يا عجزك يا كسلك كسلك عجزك يا كسلك ما حاول حياة العجز والكسل وحاول حياة عجزك هو حالة قبل كريم بقى وأود أرض وهين كسلك هنا أود بعض الله لكن أذيك يبقى كوه سرايا لأن يرى بحاول دي ده إنه تراويح ده لده بيست إمام كيس إن إمامك لده بيست تراويحنا بحاول دي ده بحاول كوك اللي فعلين ده يري markay cishaha la tukado intuu xagga dama fariisto kursi iskaga fariisto markuu imaamku ragcada hore maraayo markaansa intuu soo akhriyo quraankiisii oo dhan Allahu akbar markuu rukuuco uu ku soo buudo culimada qaar baa ragcadaas ma ansaxayso culimada qabta inay ragcadu waana sida saxiixa ah oo saxiix min qawl ilmi rukuucdu waa rukn yaan oraba waa wax la isku jimacay weeyaan laakiin in ragcadu ay tahay ركن من أركان الصلاة لكن مسألة واضحة قف كنتو حتى اسكو باشارو اسكو فديو قير اسكو سو سocdo ama kursi ku fadhiyo markii imaamku sii rukuucayo ula rukuuco culimadu waxay leeyihiin salaadiisu ma ansaxdo waayo rukn min arkaan الصلاة ayuu si u kasay uga tagay marka mas'alada uu ku baraarujinaya dhalinyarta qaar ma soo ku arkaa ragcadda ugu horeeyay tiirka iska tiirsadaan iska fadhiyaan hadda qiraa'ada la socota masaajidku ku dhex jira uu saqaba markuu imaamku israa rukuuc Allahu akbar taasi intuu soo rooro ay la rukuucaya ragcadaas ku jirto ragcadaas marka wahsigu iyo kasalku waa waxaad awood u leedahay oo sameyn karto laakiin maxaa ku dhacay adiga ka wahsay marka cajsiga iyo kasalku way kala duwan cajsigu waa qof aan kari karinba imaka odayaasheena waa weyn qoliman sarjooga ku tukan kara Soomaa هذا فرنسان سعودي دار ماها كاس كسر ماها هو عجز أول ما لها إني سرتشو أي كنت كذا تاسمد ويان تكلنا وحويان وإن تسكون حيرته دد أهل خير دائما بش رمضان أهل خير كإسكو حير أو لا هو مدلتشرة لأن يركله وناكسن وضبلما إلى إنتاج سكوتي مادان inaad isboorri gelisaan inaad isdhiirri gelisaan in iyaguna ay cawn ku noqdaan aduguna aad cawn u noqoto mas'ala haddaan intaanan ka bixin tii taraawiixda xadiis nebigu sal slam wuxuu ku yidhi man sallaa maca imaamihi xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamkiisa la tukada salaada taraawiixda ilaa imaamku dhammaysanaayo waxa loo qoraa qiyaamuleyl baa loo qoraa marka qofka imaamkii intuu 4 ragcadood loo tukaday baxay dee ajarka 4 ragcadood uu leeyahay ama 6 ragcadood uu kaga tagay imaamkii laakiin fadligan in qiyaamul leyl dal loo qoro uu seegay marka dhalinyarooy bal nafta in layliya bishan oo maalinka maanta ah in taraawiixda imaamka la dhamaysta taas waa mid oo yara aan iri in tii ka horreysay oo heed in dad ahlu khayr aad isku xirtaan mid kale oo muhiim ah jirto dadka dhalinyartii dibadda joogay masaajidka soo geliya ee asxaab aan wanaagsan oo ahli macaasiya laha waa inay xariga u jiraan xariga weliga ha isku sheekeen lugna masaajidkan kula jiraya lugna meelihii macsida ayaan kula jiraya weliga ha isku sheekeen
ardaagii macsida xerooyinkii shahawaadka golayaashii baashaalka meelihii kolayga iyo qaadka meelihii shiishada iyo badeecada lagu cabaayay koofishobyadii in hadallada maalayacniga lagu hayay ee laga yaabo inay habliga inay isku dhex jiraan oo la isku qoslaayo la sheekaysanaayo hablaha cawradooda la daawanayo lugna masaajidkan kula jirayaa lugna dibaddan kula jirayaa oo fiic meesha bishar Ramadaan haddaad dibadda masaajidka ka tahay go'aan adaggaan عزيمة يشو عزيمة يلو أو واحد ترى هذا مانتا وأن بنجاري وأنا توبت كينيا إلهي ونصور قرية وحن الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحن الله عز وجل كبر هنا إنه لنيرنا وكله كو إلهي حقيس وجهه كو مساجد إن رجوه إن إلهي أزياديو لنيرتين اللي بدأ شوك تردي وعروتينية قبله إنما إن إلهي سبحانه وتعالى قلوبتooda uu soo dumo masaajida oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hanuuniyo wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa imaamka masaajidka Sheekh Xuseen iyo walaalaheena barkulanka Ibn Khaldun iyo walaalaheena duubaya muhaadaradan iyo jamcan khayr kale ee ka soo qayb galay inta waan idin mahadnaqayaa Ilaahayna khayrka ha waafajiyo Ramadaan caafimaad ha ugu gaarsiiyo أنا قد يقول صوم إيه صلاة إيه كتاب كيس آخرية وجزاكم الله خيرا.